dadka countiga ama dawladda hagaanka Wajeer ayaa waxa aysan fahansaneyn habka loola macaamilo dadka la nool cudurka HIV/AIDS waxa la sheegay dadka cudurkaasi la nool in deegaanka ay kala kulmayaan dadka ku nool faquuq aad u badan kaasoo dhibaatooyin badan ay dadkaasi ku qabaan wariyahayagu waxa kale uu soo sheegaya in tiro dadka cudurkaasi qaba ay soo kordhayaan deegaanka Wajeer ku jirta magaalooyinka tirada dadka qaba cudurka AIDS-ka sanad kastaba uu ku soo badanayo ayadoo bulshada Soomaalida ay ku yar tahay dadka la xanuunsan cudurka dilaaga ee AIDS-ka hadda sida sheegay Wajeer waxa ku jirta the red line county-alka HIV kor u socday ku tahay marka laguma haboono ilan county-alkan kala population-kooda badan yahay population-kan Soomaaliland oo yarana marka HIV kor u kaca in la dhamaanayo marka dhalinyaro badan ayaa sanad waliba noloshooda ay dabooshaa qoomamayn iyo murugo aan dhammaan kol haddii laga helo fayraska keeno cudurka dilaaga ee AIDS-ka ruuxa qaba cudurka AIDS-ka ayaa waxa uu qaataa kaniiniga ARV-ga oo ah kaniini hoos u dhigo heerka fayraska ruuxa jirkiisa ku jiro taasoo horseedo in unugyada jirka ee la dagaalamo cudurrada ay kubcaan qaar ka mid ah dadka qaba cudurka AIDS-ka ayaanan qaadanin kaniinada ARV-ga cabsi ay ka qabaan dadka kale inay ogaadaan bulshada Soomaalida ayaanan weli baran sidii ay ula noolaan lahaayeen dadka qaba cudurka dilaaga ee AIDS-ka ayadoo dadkani ay la kulmaan takoor bulshada dhexdeeda Deeqa Maxamed waa hooyo 6 ilmood waxayna la nooshahay cudurka AIDS-ka waxay sheegtay in bulshada ay kala kulanto faqooq amba takoor wax ay takoora markan jiiraan aan noqdo hal ruux oo gurigan kalex baloodkan kalex ma arkaysa oo darbiga ku wareegsan kalex ay kontoon ceelkeeda tabiic kama dhaasad laakiin had magaalada maxalliga stage garafta meel kasta way garanayaan wixii ana u tagoon dhahay isii way isiyaan 3 sano ee la soo dhaafay tiro dhalinyaro oo daadoodu u dhaxayso 18 ilaa 35 oo gaarayaan ilaa 250 ayuu haleelay cudurka dilaaga ee HIV/AIDS-ka gudaha countiga Wajeer oo u badan dumar sida uu xaqiijiyay madaxa u xil saaran arrimaha AIDS-ka 2018 waxaan u soo kordhay 84 qof oo cusub oo HIV/AIDS lagu arkay 2018 2017 waxa 72 72 so 2017 waxa cusub lagu arkay HIV 72 2018 waxa 84 marka kor u soo socda dadka HIV/AIDS lagu arkay badan Wajeer waxa inta dhaxaysa 18 ilaa 34 18 ilaa 34 sano ee lagu arkaa ee ku dhaca oo dadka u badan marka dadawadadii qofka reerka wuxuu qaban lahaa bulshada wuxuu tar lahaa bulshada wuxuu banaaday gabarta tii waqti guur filaysa ma cid qabalad wiilka waqti kula jaamacada reerka wuxuu tar lahaa marka adoo inta filaysa inuu carruurta ku qabtaan cunuga marka HIV cid ku keenay marka waxa badan dadka ku dhaxay 18 sano ilaa 34 sano ay si badan tahay boqolkiiba 60 dadka HIV qaba countiga Wajeer waa bilcaan ilaa hadda 500 qof oo daawo qaata ilaa 300 ama 260 waxa way bilcaan oo badan daada 18 ilaa 35 ayaa dhalinyarta uu badan yahay cudurka AIDS-ka ayadoo daadaasi ay tahay kuwa wax soo saar kale ayadoo Soomaalida ku nool countigan Wajeer dhaqan soorka aad loogu dareemayo inuu ugu badan yahay tani oo loogu aanaynayo inay ku dhaxmilmeen qowmiyadaha kale ee dalka dego